بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا بما تحب وترضى daawadayaal mar kale iyo kulanti wanaagsan iyo barnaamijkeenagii xalka qoyska qaybtiisii 8aad qaybteena hore oo runtii fura qaybtii ugu horeysay ahayd fahamka qoyska aan uga hadlaynay ama xoogaa inay dheereed baan waxaan rabnaa inaanu wax yar aan dib ugu noqono si aan isu fahamsiino wixii aan ka soo hadalnay waxay ahaayeen waxaanu ka soo hadalnay in fahamka qoysku uu u baahan yahay qof kale si dhab ah inuu u fahmo oo u barto oo qof kale uu si fiican u daraaseeyo intaan la kharash garoobin inta aan sumcad iyo waqti la isku lumin inta aan la isnicin in marka hore si fiican la isu fahmo waxaan soo sheegnay in iskaan la ismariyo oo qof la si fiican u barto markii dambe waxaanu ka hadalnay in fahamka qoysku ku xiran yahay 9 qodob in la iska fahmo inta aniga aan ka fahmay 9 qodob waxaan ku soo sheegnay diinta dabeecadda dhaqanka ixtiraamka akhlaaqda tala wadaagga kalsoonida sabirka iyo jacaylka 9 qodob anigu aan ku taliyay in la iska fahmo waxaan u dambeysay jacaylka waxaan ugu dambeysay waxaan macnaheedu waxa weeye in jacaylka la soo hormariyo qasaar fara badan ma ka dhalatay iyadoon la isfahmin sidaa darteed waxaan ku taliyay jacaylku inuu noqdo waxa u dambeeya ee la iska fahmayo qodobadaas hore marka la maro kadibna la iska fahmo waxaan casharkeena hore ku soo sheegnay in saad u fahamtid guurkaaga saxda ah aad isticmaashid caqliga ilaahay ku siiyey qaybta wax lagu qiimeeyo qaybta wax lagu faaqido analytical intelligence baa la dhahaa qaybta wax lagu daraaseeyo inaad horta aad isticmaashid oo aad fahamtid waxaad rabtid inaad u soo jeedisid inaad daraasaysid si aad u guuldarraysan sababta waa aasaaska waxa dhisaysa guriga marka aasaaska loo dhisaayo waa ogtihiin dhagax baa lagu dhisaa waxaa laga ilaaliyaa in meel ka duleeshanto shamiito badan baa lagu shubaa waa la shubaa guriga markii aasaaskiisii la hagaajiyo kadib baa wixii la saaraa fahamka qoysku waa bayska gurigaaga waa furaha guriga laga geliyo waa meesha haddii ay kaa khaldanto aan wax kuu saxmayaa jirin hadday kuu hagaagtana aan filayo inaan wax badan kaa khaldami doonin sidaa darteed waa in culays badan la geliyaa waxaan ka soo hadalnay marka caqligaas inaad ku daraasaysid meesha fahamkaas 9 qodob aan ka soo hadalnay waxaan kaloo ka soo hadalnay inuu jiro hiraal iyo hami kugu jira oo ah meesha aad rabtay horta waxa rabta qofkan hami ka lahayn ama aan lahayn hiraal inuu guursado mustaqbal dhiso uu jacayl abuuro ilma ilaahay siiyo ka fakaro hadda hiraalka hadduu kaa maqan yahay ma u dhaqaaqaysid marka wixii lagu hamiyo oo laga go'aan qaato qorshana loo sameeyo waa la gaaraa marka waa inuu kugu jiraa doonis iyo hiraal aad qoratay oo ah inaad meel socoto sidoo kale waxaanu ka soo hadalnay inuu jiro cabir aad ku cabiraysid ciddaad doonaysid ciddaad tahay sidaad doonaysid inaad u noolaato waxay tahay qofkaad doonaysid inaad noolaato wuxuu yahay waa qof noocee ah waa qof sidee culture-kee leh dabeecadee leh waa qof dhaqankee leh waa qof aqoontee leh waa inaad socotaa waa qof da'dee ah marka waa in cabir uu jiraa kuu qoran oo maskaxdaada ku jira oo aad doonaysid inaad la noolaatid haddii aadan cabir lahayn oo ujeedku yahay gabadhii kaa hor timaada oo qurux badan iskala jirayo la soco la hadal oo waxba kuu qiimaysnayn wax guula ma gaaraysid haddii sidoo kaleeto gabdhuhu ay yihiin wiilkii kaa hor yimaadeen dee abbaay macanku yidhaahdaa ama jacayl kuu soo bandhiga la socona iyadana waa khasaaro kale waa in jacaylku u dambeeyaa 9 qodob aan ka hadlay jacaylku waa inuu u dambeeyaa waxyaabihiin ka soo hadalay oo kalena waxaa ka mid ahaa oo casharkeennii ku jiray in 9 qodob fahamka qoyska 2 qodob u horeysa aan soo sharaxnay oo ahaa qodobka diinta aad muhiim u yahay waa dardaaranka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh oo yiri doorta gabadha diinta leh 4 shay ku doorta quruxda diinta nasabka iyo maalka nabiguna wuxuu amray in diinta lagu dhigo marka gabadhuna waa sidoo kale wiilka waa inay diin ku doorataa ma arrintaas khaas kuma aha gabadha waxaad ogaataan markii aan caqligeena caadiga ku fasirno
qofka ilaahay ka xishoon ilaahayga abuuray oo adduunkan keenay oon salaadiisa tukanin oon u soomin ilaahay lixaadka siiyey caqliga siiyey qof ka dhigay qofkan ka xishoon qof kale oo diris la noqda ama nolosha uu la wadaagay ka xishoon maayo ogaada qof ka doqonsan ma jira maanta qof nool oo inta ilaahay islaam ka dhigay biyaad islaamiga ka dhex dheliyey haddana ilaahay salaadiisii iyo waajibaadkiisii si bareer ah uga tegayo iyadoon cid khasbayn marka ogaada qof ilaahay ku caasiyey adiga wanaag inaad ka sugtaa waa adag tahay marka waa inaad fahamtaa qodobkaas xataa mandaqa markaan ku qiimayno caqligeena caadiga ah inuu yahay qodob khatar ah oo qofka hadduu ilaahay abuurtay uu ku caasiyey uusan bilaadan xushmo iyo wanaag uusan ka filaynin marka waa inaad arrintaas ka qiimaysaa qodobkaas labaadaan ka soo hadlana wuxuu ahaa dabeecadda oon ku sheegnay nolosha asaaskeeda waa ka soo hadalnay dabeecadda waxaan sheegnay qofka dabeecadda leh 5 qodob in ay bees u tahay 5 qodob waxaan ku soo sheegnay miirka dada socodka deganaanta caadifada oo qofka suuga jawaabay waxyaabaha mashaakilaadka la kulma afgaabnidiisa oo san wax walba dhex gelaynin la qabsiga waxyaabaha cusub iyo dada socodka waxyaabahaas waxay u yihiin saldhig qofka dabeecadda iska leh markii maadiyan loo fasiro waay waxaa kaloo lagu fahmaa qofka dabeecadda leh oo dabeecadihiisa oo dhaqankiisa ka mid ah inuu ku kalsoon yahay naftiisa inuu ku kalsoon yahay oo wuxuu qabanayana ku qanacsan yahay meesha uu socdana ku qanacsan yahay taasna waxay wax badan ka tartaa dabeecadiiso qofka dabeecad wanaagga kalsooni buuxda ku qabaa wuxuu sameeyo waxa kaloo lagu gartaa qofka dabeecadda leh diin jacayl qofka diinta jacayl dabeecadda wanaagsan waxay ku xambaaraysaa inaad garato waajibaadka lagu leeyahay allahna kugu leeyahay bil aadankuna kugu leeyahay deriskuna kugu leeyahay saaxiibkuna kugu leeyahay qof kula shaqeeyna kugu leeyahay ay ku baraysaa waxa kale oo qofka dabeecadda wanaagsan lagu qiimeeyaa kamid ah dulqaad inuu leeyahay qof aan dulqaad lahayn ama wax aan laga didin ka didaya ama qaab khaldan dadka ula macaamilayo oo qofkaas wuxuu ku sameeyay ahayn dabeecad buu leeyahay lama oran karo dabeecaddu waa inaad qofka dulqaad u leeyahay oo u adkaysan karo khalad lagu sameeyay oo bareeraha waliba inuu adkaysan karo raba faraha ka qaadi karo waxa kaloo lagu garan karaa qofka dabeecadda leh waa aaminnimadu dabeecad wanaag ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah soo jiidasho qofka bulshada ku dhex jiro inuu soo jiidan karo inuu dhex geli karo inuu fikirka asagoo qabo dadka ka iibin karo inuu ikhtirac samayn karo dabeecad wanaag waxaa kaloo ka mid ah furfurnaan oo ah wejigiisa iyo hadalkiisuba inay yihiin dad wax dabacsan oo aan dadka xanaf lahayn oo aan dadka dhibayn qofka wejigiisa markaad aragtid dabeecadda leh adaa jeclaysanaya waa shining wejigiisu waa furan yahay waa faraxsan yahay qof walba wuxuu leeyahay kaala ila qaybso farxadan laakiin qofka weji macbuuska ah oo aan dabeecadda lahayn wejigiisaa xiran indhihiisaa taagan hadalkiisaa adag waad fahmi doontaa marka furfurnaanta waxay ka mid tahay dabeecad wadaagga waxaan uga soo hadalnay marka labadaa qodob oo diinta iyo dabeecadda ah 9kii qodob oon ku fasirnay inay ahayd fahamka qoyska ayaan hore uga soo sheekaynay hadda insha Allah waxaan bilaabi doonaa qodobadii kale hadda aan soo sheegnay ayaan intaan ka gaarno sharxayna sababtu waxa weeye inaan fahamno gurigaan dhisayno waxyaabaha tiirarka u ah inaan ka rabo si aan u dhisno qoys baraara oo barwaaqaysan oo aan naga dumin waayo qodobka saddexaad aan ka hadlayna marka casharkeena maanta ugu horeeya insha Allah wuxuu noqon doonaa dhaqanka qodobka dhaqanka leh dhaqanku waa ogtihiin waa hooyada nolosha waxaad ogtihiin in qofka dhaqankiisu ay sawir ka bixiso asaga qiimihiisa haddaan caawa soo jirto madax oo meelahan soo banneeyo oo fanaanad xun oo geesaha ka jaxan soo qaato oo sarwaal jaxjaxan oo jeemis oo aad moodi in sakiin lagu jaxjaxay aan soo xirto yaa oo aan dadka soo dhex galo muuqaalkaas wuxuu bixinayaa waxaan macno lahayn halkaa macnanka sawir baan dhiibay sidoo kale waxaan haleeyay dhaqankii labiskan haleeyay sababta cawladeeda waa muuqata wax jaxjaxan baan qabaa anigu waxaan hab loo maaragtay ii sheeg bulshada ku dhex galo macna ii sameynaysa anigu ma garanayo marka dhaqankii labiskan haleeyay markaasaa sameeyo yaan xumeeyay sidoo kale meel bulsho joogta ama qof haddaan hadal xun ku ilaahdo waxaa weeye dhaqankii hadalkan luminaya sababtoo hadalku dhaqan buu leeyahay wanaag buu leeyahay labisku dhaqan buu leeyahay shaqo kastoo qabanaysa dhaqan bay u baahantay marka dhaqanku waa bayskii nolosha
qof walbana waxaa lagu qiimeeyaa sida uu dadka ula dhaqmo haddii qofku wax wanaagsan qabto waxaa la dhahaa hebel si fiican buu u dhaqma hadduu wax xun la yimaado waxaa la dhahaa hebel dhaqan xun uu sameeyey ama si xun buu u dhaqmay taasna waxay sawir ka bixinaysaa ficilkaaga iyo hadalkaaga iyo sharaftaada iyo qiimahaagu sida adiga u soo bandhigtid yaa dadku u qiimeynaya marka dhaqanka marka la yiraahdo dadka Soomaalida waa isku wada dhaqan baadiyan ka nimid dhaqan wanaagsan oo xishood leh oo ixtiraam leh oo maaragtay ii sheeg xurmo leh yaan ka wada nimid laakiin markii la kala baahay oo Soomaaliya afarta gees la kala degay xoogaa iyadoo Soomaali la wada yahay deegaankii la kala degay environmentigii saameynta yeesheen waxaad moodaa xoogaa farqi dhinaca guurka marka la yiraahdo dhaqanka inuu soo dhex galay oo qolo ama qoys ama deegaan ama meel environment Soomaali degan tahay waxyaabo ceeb u taqaano yaa laga yaabaa deegaan kale inaysan ceeb la ahayn oo wax caada ka tahay waana meesha Soomaalidu ka tiraahdo waxaad ceebta u taqaan nin bay caadadiisa tahay marka waxaan rabaa in la fahmo oo labada qof ee dhisaysa qoyska iska fahmaan dhaqan ahaan inay iska fahmaan qofba qof kale wuxuu ka aaminsan yahay sida qoyska waxa la yiraahdo sababtoo labadan qof markay rabaan inay dhisaan qoys waxay abuurayaan shaqo reer cusub waxay abuurayaan xiriir cusub ninba ninka kale qoys buu leeyahay waxa isu imaanay labadii qoys halka waxa ka abuuraya network ama xiriir cusub oo dadan hore isu aqoon dadkaasi maxay horta ka mudan yihiin muxuu ka arkaa seebuu u fahamsan yahay dadkaas iyo xiriirka iyo waxa ka dhalan doona qofka kaleeto wiilku sadaq buu yeelan doona sadaq buu yeelan gabadhna waa sidoo kale xidid bayaan wax leeyahay xidid Soomaalidu tiraad xidid ma kan jiri ku jira xidid waxaa la yiraahdaa qofka dadka aqrabada u ah ee ka yimid xagga guurka aabaha hooyada walaalka abtiga ina adeerka marka qofka xididkiisa wuxuu u fahamsan yahay waxaan rabaa marka inaan soo qaato dhowr sheeko oo aniga xoogaa ila muuqata in idin la wadaago oo ku saabsan dhinaca dhaqanka sababtoo gabadha haddaysan aqbalayn ama aysan ogeyn wiilka hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii inay ula dhaqanto sida iyada kuwii dhalay ama aysan u fahamsanaynba dhaqankaas xoogaa waa lagu kala boodaya sida ula dhaqmayso sababtoo waxaa la rabaa in labadaba wadaajiso xurmada iyo qiimeynta iyo sharafta inay wiilkana hooyadii iyo aabihii siiso kuwii iyada dhashana oo ka timidna ay siiso wiilkuna sidoo kale laga rabaa inuu xurmeeyo gabadha waalidkeed iyo sidoo waalidka asagoo xurmeeyo inuu xurmeeyo la rabaa haddaan dhaqanka halkaa laga hagaajin oo sida aan ku nimid ama awaawiyaashana ama aan ka soo gaarnay aan loo xurmeyn dadka dhaliyada ah ee ka soo jeeda qoyska arrintaas waa xumaanaysa dhaqankana waa xumaanaya waxaana tusaale inaan dhowr inaan soo qaato waxaa kaloo lagu kala duwan yahay habka loo macaamilayo oo qoysku u macaamilayo dhaqan ahaan su'aalaha la isweydiinayo waxyaabaha maaragtay maxaan ku yiraahdaa reerka dhexdiisa ka dhacaya habka looga dhaqmayo waxyaabahaas oo dhan in aad la isaga fahmaan loo baahan yahay waxaan rabaa dhowr sheeko inaan soo qaato gabadheeda Sahra Xuseen oo arrimaha qoyska hasha waxay ka sheekaysay ka hadashay qoys Soomaali ah oo dibadaha degan qise ka dhacday qoyskaas wiil iyo gabar baa isguursaday waa degeen ninna waalidkii lama joogo dadkii yaacay oo dibadaha galay bay noqdeen wiilkii gabadha markuu guursaday oo ay u degan tahay oo labada wada nool yihiin yaa waxaa timid wiilka hooyadii oo asaga kaliya dhashay wiil kale iyo gabar kale midna mala asaga dhashay ayuu keenay wadankii gurigii buu keenay gurigii markuu keenay gabadha uu sheegay hooyo imanaysu yiri markii gurigii uu keenay waxay tiri hooyo xagee rabtaa inay ku noolaato wuxuu yiri gurigii ku noolaanaysa aniga la joogisa waxay tiri macquul ma ila noolaanaysa aniga hooyada adiga hooyada ma ila noolaan karto hadda maxaad ku diiday waa hooyo aniga inaan ahayn ma dhalin aniga ay fiirsanaysaa maxaad ku diiday aniguna halkan deganahay adiga xaaskayga waxaan rabaa aniga hooyo inaad ku si ula macaamishid hooyadii way ixtiraamtid soo aniga ima doonaysid adiga waa ku doonayaa laakiin hooyada aniga ma aha ninkayga mana doonayay tir adigu arrintii markuu arkay in gabadhii ay diiday arrintii hooyadii oo aysan diyaar u ahayn inay hooyada guri ku noolaato guri u kireeyay halkaasuu kharash kale ku galay dad u qabtay shaqaala halkaasuu si uu reerkiisa u burburin ayaan baa la joogay iyadii waxba uma arag arrinta ay sameynayso because dhaqan ahaan ma fahamsana macnaha ka dambeeya in waalidka la fogeeyo ixtiraam xumada ay leedahay ma fahamsana dhaqan ahaana laguma sheegin diin ahaanna waxaa laga yaabaa inaysan wax badan wacdi la kulmin waxaa dhacday marka in iyada hooyadeed oo xanuunsan la keenay marka
gabadhii hooyada inay gurigii keentay iyadoo aan kala tashan ninkeedii. ninkii markuu arkay si u dareensiiyay xanuunkii ka gaaray arrintii iyadoo ay samaysay sidoo kale ula hadlay wuxuu yidhi hooyada guriga maxaad u keentay saytir hooyaday baa anay ila noolaanaysa soo hooyaday ma waa og haweeney hooyadaa tahay laakiin lama noolaanayso guriga haddaan anigu masuul ka ahay ama adiga hooyadaa israaca ama guriga hooyadaa ka sar oo se u saaran ma hooyaday baad doonay haddaa hooyaday doonay waan raacaya israacu yidhi adiga hooyadaa baa israaca anigu hooyadaa maan qaba adaan ku qaba waa say shalay kulahayd asaguna marka dhabka ma ahan wuxuu rabaa inuu dareensiiyo xanuunkii ay gabadhaasu asaga gaarsiisay iyo dareenka uu ka qaaday arrintaas uu rabaa inuu fahamsiiyo anigu hooyadaa ma qabee adaan ku qabaa buu yidhi ama hooyadaa raac oo guriga iga baxa ama hooyadaa guri ka sar war guriga kaaga tegayaa bay tiri hooyadii ka harimay nabaday waa laga baxay arrintii baa la maqlay dee Soomaalidu inta badan dee waxyaabahaas aad bay meel joogto uga wada hadashaa arrintii baa suuqa gasho xalay hebel iyo gabadhii saas ku sameeyay gogol baa loo dhigtay xalay maxaa wax ku sameysay Soomaalidu geed hoosta wax ku dhamaysan jirtay sahar waxay leedahay markii la wada hadlay ayuu ninkii wuxuu yiri aniga gabadhan waxa iga muuntahay waan aqaanaa hooyadeedna waxa iga muuntahay waan ogahay laakiin sanadkii hore ayaa hooyaday oo aniga kaliya dhashay guriga timid gabadha waxay tiri nolol mayso weydiiye way eriday hooyo guriga waan ka saaray guriga waan u kiriyay kharash baan geliyay dad baan u qabtay gurigeena leelinay iyadoo sidaas samaysay inay iyada hooyada guriga keento macquul ma ahayn waxaan rabay inaan tuso xanuunka ay leedahay waalidka oo la xurmo dareeyo oo booskiisa boosana ay la geeyo gabadhii waa la su'aal waxay saa ma samaysaa ha waa sameeyay hadda maxaad ka rabtaa wali adaa ka khaldan arrinta marka waxay dhalisay tiri gabadhan sheekadan soo warisay in labadii hooyo gurigii la keeno lagu wada hayo halkaasna uu ka bilowdo dhaqan cusub oo waalidkii labadaba inay xurmeeyaan ay ku wada noolaadaan marka waxaa la rabaa in labada qof rabta in nolosha iska fahamto ay iska fahmaan xididka iyo waxyaabaha ka dhalanaya mas'uuliyadaas in si fiican la isaga sii fahmo sheekada labaad waxay ahayd mid anigu goobjoog ka ahaa oo ka dhacday koonfurtan Soomaaliya gobol ka mid ah nin baa gabar guursaday ninka gabadha uu guursaday dabcan dee ehel bay leedahay waxa bay leedahay dad bay leedahay waa la isu imaanaya waa dad sheekaynaya oo maxaan ku yiraahdaa ii sheegeen maxaan ku yiraahdaa ii sheegeen hawshii maxaan ku yiraahdaa ii sheegeen ka xiriiraya way marka waxaa dhacday in uu maxaan ku yiraahdaa gurigii uu wiilku dajiyay gabadha ay qaraabo niman soo boqdaan qaraabadu ma ahan gabadha wiilka la dhashay waa ilmo adeer sidana gurigu dadka xididka meel bay ku leeyihiin ay ka fariistaan dhaqan ahaan Soomaalida waxay ku leeyihiin guriga meesha fadhi qolka fadhiga ah banaanka in lagu la hadlo qolka fadhiga la fariisiyo lagu soo dhaweeyo qolka chiefka wuxuu khaas u yahay haweeneyda iyo ninkeeda waxa dhacday markii ninkiiba guriga dhowr jeer wuxuu yimid dhowr nin oo gabadha qaraabo dhow la ah ama ilma abti ha ahaato ama ilma adeer ha ahaadaan waliba ilma adeer bay ahaayeen oo qolkii chiefka ay ku wada hadlayaan qolka chiefka waxa ku jira maaha marka nin maaha waa dhowr nin xumaana may sameeyeen laakiin inay qolkii chiefka galaan oo gabadhii walaashooda qolka inta u galaan ugu sheekeeyaan iyaga normal bay u ahayd wax caadi ah ahayd ninkan gabadha qaban wuxuu arkay in makaankaas uu sanayn makaankii ay lahaayeen makaankoodii uu yahay meel kale dhowr jeer hadduu arrintii arkay ayuu gabadhii la hadlay wuxuu ku yiri wiilashan walaalahaaya maad u sheegtid maaha meeshaan qolkan chiefku qolkii naga dhaxeeyay dadkii aniga dadka ehelka oo qaraabada ah waxay leeyihiin qolka chiefka waxay leeyihiin banaanka kuraasta taala in lagu soo dhaweeyo laakiin qolkan chiefka anagu khaas noo yahay mana aqbali karo in maalin walba dad ehel oo qaraabo aan ugu imaado arrintaas way dhibaysaa iga daab ku yiri gabadha ku soo celis waxay tiri wareer ma macquul maaha in maaragtay dad nimanka aan waxa u sheeg waa ceeb waa ila dagaalamayaan waxay leeyihiin anagu naga shakiye dhibaato abuurayaan طبعا way taqaanaa laga yaabaa asagii marka halka ma qiimeyn wuxuu yiri maya sida saxda waxa weeyna u sheegtid makaanka ay guri ku leeyihiin maadaama ay soo hooyada iyo aabaha dhaleen ay ehel yihiin oo adeerka u dhalay u sheeg booska ay guri ku leeyahay ka fariisto dhowrkan gabadhii markii dambe u sheegtay waxa laga yaabaa xoogaa habkay wax u gudbisay inuu khalad ahaa laga yaabaa laakiin arrintii markay u sheegtay tiri ninkiiba diidan guriga inaad soo gashaan dabcan waa sida hadalka u muuqday nimanku aad u caroodeen iyadoo ma oran gurigeygii weeye naga daayo halkaan nagii waxmay kale xoogaa kalamay bas maslaxin
oo caqligeeda ma isticmaalin xoogaa waxaad moodaa arrintaas khaldan inay u gudbisay khaladkiina khalad baa ka dhashay nimanka waa caloodeen waxay yidhahdeen gabadhii annaga walaalkii ma nooga shakiyey maba qabayaba waa inuu furaa hadduu yidhi gurigan qolkaa nimanka maxay ugu jiraan waa naga shakiyey soo maba qabayaba bal fiiri khalad labaad bay samaynayaan marka hore ma ahayn makaankoodii meeshay galeen markii labaadoo la saxayna khalad bay ka fahmeen waxaa dhacday marka inay ninkii inta u tagaan dhahaan ninoo gabadhaan doonay inaad noo furto gabadha kuwii dhalay maaha walaalkii cabba maaha waa qaraabadii waa ilmo adeer wuxuu kiri war gabadhaan anigu shalay baan guursaday ehel iyo qaraabi iyo dad baan ka guursaday aabaheed baan ka guursaday haddii aan furayana dee ama iyaday ka imaanaysaa ama waarid bay ka imaanaysaa adinku ehel baatiina booska leedin raaca maya annaga waad nacayday waana xurmad daraysay dhibaataad nagu abuurtay ma qabaysid naagtan waa inaad furto haddii kale waa isdilayna cayaar bay isaga qaato wuxuu yiri hadda iga tagay qeylada igala tag waqtigii dalka fowda ahaa bay ahayde hubbaa la soo qaato ninkii baa la weeraray lama dilina waa sigta mar labaad baa haddana suuqa inta lagu arkay haddana la weeraray ninkii waa isdifaacay oo nin buu ka dhaawacay nimankii markuu sheekadii suuqa gashoole ninka maxaa lagu haystaa saasaa lagu haystaa waa ishuuyey ninkii oo dad wuxuu qaatay waardiye ah wuxuu waardiyaha ka qaadanaya waa gabadhii dadkii qarabado ka ah isagoo magaalada dhex maraya yaa nimankii hubaysan weerar ku soo qaaday asna dhowr wiil baa la socota hubaysan oo waardiye ka waa la isxabadiyey nimankii weerarka soo qaaday nin baa ka dhintay geeri baa timid marka geeri markay timi wiilashii waa ninkii meel u dhow oo niman waardiyaha joogeen oo guud ahaan ay maaragtay dabcan isku reer yihiin ayay magangelye u galeen maadaama laga tira badnaa oo inay dagaal galaan diyaaraysan u ahay nimankii ay maganta ugu galeen Soomaalidu xeel adag bay lahayd hubkooda soo gurteen waxay dhaheen nimankan gurigan soo galay anaga maanta noo ah ma taabanaysa waa la isku fahmi waaye barti baa dagaal hor la ka dhac waxa dagaalamay qolada martida loo ahaa iyo nimankii wax soo weeraray nin kale haddana ka dhintay qoladii wax soo weerartay oo dulmiga sameynaysa laba nin bay maraysaa makaanka guriga ay ka leeyihiin halaga dego laba nin bay maraysaa arrintaa markay dhacday hadda waa dhammaatay markaa in wiilkii gabadhii si xorriyada waddanka u joogaan waa la fakeray waxaa leeyahay maxaan samaynay waxay noqotay in waddanka laga saaro way dhici kartaa hadda inay maqlayaan in waddanka laga saaro oo waddamada aadaan loo raadiyo ayay noqotay maxaa keenay marka dhaqan xumaa keentay waxaa keenay marinkii lalahaa oo laga leexday baa keenay dhibaatadaa waxaa keentay garasho la'aan la garan waayey booska gurigaas oo ehel ku leeyahay ayaa keentay waxaan u joogay baa anigu oo hadda aanan qofna ii werin waxaan kaloo rabaa si dhaqanka aan isaga ilaaliyo inaan sheeko yaro qosol ah oo waxoogaa yaro maad ku jirta laakiin anigu aan ujeedo ka leeyahay aan ku soo kooba dhinaca dhaqanka sheekadaas waxay ahayd burburku markuu dhacay dabcan dawaad garanaysaanoo shaqa la'aan baa timid ana suuqay galeen oo tabac iyo adduun iyo dhaqaalay abuurteen marka gabar iyo wiil baa isfahansaday wiilku shaqo ma hayo nin shaqaystana maaha nin xoolo haystana maaha gabadhuna xoogaa xoolay haysata marka waa markuu shukaansaday oo ay isfahmeen waxay tiri anigu waxaan kaa rabaa xoolaha haddaad haysan anaa reerka waa xoojinaya hadday guri tahay anaa dhigaya hadday dhuuni tahay anaa keenaya hadday arad tahay anaa ku arad bixinaya laakiin adiga hal shay keliya lagaa rabaa halkaa shay haddaad heshiiska ila gasho gurigan anaa dhisaya anaana aqalkayga dhisanaya waxba kaama rabo oo muxuu yahay waxaan rabaa bay tiri aniga habeen walba afar wareeg inaad gashaan kaa raba afar wareeg inaad gasho haddaad saxiixda heshiiskaas arrintaan la dhammayn afar wareeg keliya ka badan baan geli karaa gabadha waxay la degan tahay hooyadeed oo sodaha ayay la degantay waa hooyadii oo qol degan gabadhaan oo qol degan oo ninkaan ku qaban sheekadii waxay yaan socotaba de bini aadanku qofku electric kuma shaqeeyo waxay dareentay in awoodii ay soo yaraanaysa ninkii asna waa ka hortimid arrintaas marka wuu fakaro wuxuu yidhi nin balcaawa aad khiyaamo samaysid oo maaragtay sheeg arrinta aad wax khalad samaysid iyaduna difaac bay ku jirtaa waxay leedahay ninka awoodiisa waa yaraatay waa aragtay inuu sii tabardaraynayo difaac ay ku jirtaa heshiiskii inuu iska bixin bay diyaarta wareegii saddexaad markii la galay yuu yidhi afar iyaduna waxay tiri labo kiis baa la isku haystaa bog afar iyo laba la isku qabto marka waa la murmay
murankii waxaa ku soo baxay marka ilaa hooyada la degan cid kale ma jirtee duqdaa ku soo baxday sodohda ahayd waxaan ka hadlayaa waa dhaqan wanaag la ogaado sodohdii markay soo baxday lagama qarsan kiiskii iyo wixii la isku hayay waa loo bandhigay xaakim bay ka noqotay waxaa la yidhi saasaan ku heshiin saasaan dhacday wiilka xoyaan hawsha waa dhamaystay aniga heshiiska waa ka baxay gabadhina waxay tiri laba dhiman heshiiska kama soo bixin habartii marka xaakim bay ka noqotay kiiskii oo waxay tiri nima say u dhegeysan waxay tiri waa idin ducaynayaa horta aniga wixii aan go'aamiye ma la yeelaya laakiin ilaa hooyadii ha waa yeelaynaa wali maandhooyina waa weeraraysan inta wax dhan iska dhaaftaan hadda hala soo bilaabay tiraada wax dhan ma ka baxa sheekada hadda soo bilaabay sheekadaas hadda soo bilaabada ah macnooyin fara badan baa Soomaalidu maamada ka fasirata laakiin aniga meeshaan uga jeedo waxa waay ka warrama sodo xaakim ka noqotay gogashii gabadheeda sodo loo xaakim ka noqotay go'aan ka riday gogashii gabadheeda warqan wanaag ba maya meelaha qaarkood sodo iska daa ma wada degaanba gabadha la qabo iyo ninka qaba iyo reerku ma wada degaanba ina aragto sodohda xataa ku timaado xataa waqtiyada guriyaha soo galeysay meelaha qaarkood ama qolkeeda galeysay ama banaanka u baxaysa inay ku aragto kaliya diidanta iska daa in laga hadlo waxyaabaha ka dhacaya gogosha in laga sheekeeyo ama xaakim ku noqoto meelaha qaarkood ma arkaysid dadka meelaha qaarkoodna xaakimkaas ayaa noqday maamadaas ka dhacdayo maandhooyinu hadda hala soo bilaabo go'aanka yaa soo dooridid marka waxaa la rabaa qofka aad rabtid inaad guursatid dhaqan ahaan guurka wuxuu ka aaminsan yahay iyo meeshuu ka joogo inaad fahamtid si aan hadhowta dhaqan xumo u dhicin si aan xadgudub xagga dhaqanka qoyska u soo dhicin si aan la isugu wareerin waa in dhaqanka la iska fiiriyaa oo qofkan wuxuu ka aaminsan yahay xididka iyo xigaalka iyo fikraddu ka qabo waa in qofba qof kale uu qiimeeyaa waayahay waxaan gelaynaa qodobka shanaad oo ah ixtiraamka ixtiraamku sidaba waxyaabaha bilaadanka iyo xooluhu kala socmaan qofba qofku intuu ixtiraamo oo xaq dhowro oo uu ixtiraam bixiyo in ka badan buu qofba qof kale ka helaa taas ogaad markaad qof ixtiraamto asna ixtiraamka ku soo celinaya markaad xumayso ama aad xaq dhowro weedana asaguna isdifaac buu gelaya qof walba waxaa ku jira qab waxaa ku jira hami waxaa ku jira kibir nafeed wuxuu u baahan yahay wixiisa in lagu ilaaliyo markaad qofka taabato aad qabkiisa iyo aad hadal xun tiraahdo ama xushmad darro tiraahdo waxaa taabatay qofka sharaftiisa iyo xurmadiisa baad u gaftay marka ixtiraamku waa shay asaas u ah labada qof horta inay isguursato waa in qof kale ixtiraamkiisa uu fiiriyaa qofka rasuulka u ixtiraamayo waxyaaba qofka lagu ixtiraamo waxaa ka mid shakhsiyadiisa iyo fikirkiisa in la ixtiraamo la rabo qof walba shakhsiyad buu leeyahay qof walba fikir buu leeyahay qof walba ra'yi baa uu leeyahay ra'yiga qofka leeyahay hadduu xataa adiga kula xun yahay waa inaad aadani ra'yigaagu waa zero ma fiicna aad ba caqligaagu wuxuu inaad dhihin waa inaad ra'yigaagu waa fiican yahay bal kana aan ku fiirino hadduu ka fiican yahay aan soo bardhigin labadan ra'yi keebaan dooranaa maxaad ra'yigan ku dooratay waa in sharxaad qofka aad ka bixisaa laakiin inaad ra'yigiisa qofka maqli weydo ama aad dhegeysan weydo waa ixtiraamka xun ma jiro marka waxaa la rabaa ixtiraamkuna wuxuu ku yimaadaa in la isdhegeysto maanta waxaa guryo badan ku burbureen oon ognahay saan u soo soconnaa guriga soo galnaa dantaan leenahaan qabsannaa waa seexannaa hooyadii dhegeysan mayno guriga mashaakilka jira dhegeysan mayno maxaan ku idhaahdaa ii sheeg maba fahamsaninba guriga qofka jooga inuu qofkii maxallal mashaakil ah u yahay oo guriga qofka looga dambeyn lahaa u yahay oo in la dhegeysto ay mudan tahay oo wixii ay iyadu problemka in lagu xallin karo ay u aragto in la daraaseeyo ay u baahan tahay laguna raaco marka hore oon rabno inaan guriga dhisnana dhinaca ma fiirino iyo fikirka iyo qofka suu ra'yiga u dhageystay de waa saan sheegayoo jacayl iyo loof iyo waxaan jirin baa inta lasoo hormariyo oo beena oo meeshii ka yimaadanaya say ku dhasheen aan la garan karin yaa intaasoo qodob laga guuraa kabacdina waa la kala tagaayo markii muddo yar la joogo ayaa la kala boodaa marka xaq dhowrku iyo ixtiraamku waa qodob asaas waa in la iska fahmo qofka hadba anigu intuu ku ixtiraamayo oo ku dhageysanayo oo ra'yigaaga fiirinayo waa inaad qiimaysaa qof aan ra'yiga dhageysanayn oo ixtiraam aan ku siinayn oo hadallo laga yaabo sharaftaada iyo sumcadaada
kaaga imaanayaan ama gacan ka hadalba inta xiriirka wadaan gacantii qaadqaadayo oo aad ka dareemaysa dhaqan xumo iyo waxyaabo kaleeto waa inaad noloshaada ku aaminin waayo waa inaad ka fikirto qofka noloshaada aad ku aaminaysa qofka ixtiraamaya oo saxa oo waxa duniskeedis inuu yahay gabdhahan saas kale laga rabaa gabdhuhuna sidoo kale waa inay ixtiraam leeyihiin gabdhahan ixtiraam lahayn oo laga fahmayo oo nigu ka fahmo ixtiraam xumo inay ama hadal ama ficilba ku jirto waa inuu fahamsiiyaa inay iska dhaafto hadduu fahmi karo in aysan dhaafi karin waa in uu ka tashado gabar uu ixtiraam iyo sharaf ku yahay waa inuu raadiyaa sidoo kale ixtiraam waxaa laga doonayaa reeraha degan inay deriskooda ixtiraamaan inay martida ixtiraamaan inay xididkana ixtiraamaan baa laga doonaya marka arrintaasu waa arrin muhiima oo ay la tahay in la iska fahmo qodobka shanaad aan gelayno waa akhlaaqda sideedaba waa ogtihiinoo qofka noloshiisu inta badan akhlaaq la'aan ma soconayso xadiiska rasuulku ahaa haddaadan xishoonayn waxarta samey qofku waa inuu xishoodaa waa inuu akhlaaq leeyahay waa inuu ka xishoonayo waxyaabaha asaga naftiisa iyo sumcaddiisa iyo gurigiisa dhibaya waa inuusan ka xishoon waxa gurigiisa iyo reerkiisa duminaya oo uu ka qabtaa marka qofka xishoodka waxaa lagu gartaa qofka habdhaqankiisa laga fahmaa suu u hadlayo wuxuu qabanayo ma garanaysaa suu u ilaalinayo anshaxa naftiisa waxaadna ogaataa qofka anshaxa naftiisa ilaaliyey oo akhlaaq ku ilaaliyey wuxuu dhisi karaa reeha akhlaaq iyo sharaf leh laakiin qof aan akhlaaq laba ahayn oo aad arkaysid akhlaaq xumo inay ka muuqato oo ficilkiisa iyo hadalkiisu akhlaaq xumo ka muuqato kama sugaysid inuu ku dhiso qoys akhlaaq iyo sharaf ku leh waxaa kaloo rabaa si aad qofka akhlaaqdiisa u fahamtid intaad sheekada wadaagtaan inaad ogaatid qofkan ciduu la socdo saaxiibadiisa tiimka uu ka tirsan yahay halkaa maxaa ka ogaanaysaa mahmahadii soomaaliyeed baa ku jirto ah shimbirba shimbirkiisu la duula ninka akhlaaqda xun dad akhlaaq xun buu la socdaa gabadha aan akhlaaqda lahayn gabadha aan akhlaaq lahayn ba la socota ogaada arrintaa qofka saaxiibkiisa la fiiriyaa qofka tiim ka tirsan yaha lagu qiimeeyaa tiimkaas marka wuxuu ku siinayaa sawir buuxa ah qofkaas meesha uu ka joogo akhlaaqdiisa marka waa in la iska hubiyaa akhlaaqda dhinaceedana inta aan guurka la gelin dhinaca akhlaaqda waa in la iska fiiriyaa qodobka u dambeeya maanta casharkeennu wuxuu noqonayaa qodobka tala wadaagga la yidhaahdo oo ka mid ahaa 9 qodob ee in la iska fahma ay ahayd intaan guriga kala dhisan tala wadaagga waa furaha nagaadiga guriga waxaadna ogaataan maanta waxaan joognaa casri qofba qofka kale inuu dhegaysta ay tahay ra'yigiisa inuu fahmo inta la sheergareeyo ama la wadaago gurigan iyo suu noqon lahaa mustaqbalkiisa guriga tala wadaaggu ka jiro oo marka hore tala wadaagga lagu dhisay marka dambena tala wadaagga lagu dhaqo waxaa laga gartaa guriga ilmihiisa farxaddiisa deganaantiisa ayaa laga gartaa guriga aan tala wadaag ka jirina oo marka horena aan talada wadaag la iska fahmin tala wadaagga markii dambena la arko aan tala wadaagga uusan guriga olin kala carar iyo ilmaha wejiyadooda iyo muuqaalkooda laga fahmaa marka waxaa loo baahan yahay marka hore oo aad dhisaysid gurigaaga waa inaad fahamtaa qofkaad guriga la dhisaysid meesha uu ka joogo tala wadaagga uu dadka la shargarayn karo haddaad aragto qof aan tala bixinayn tiisana aan kuu soo bandhigayn tiisana aan kuu keenin taadana aan kaa aqbalayn hadda beritana waa iska hor imaanaysaa waa in la shargarayaa talada markuu dictator qof ah oon taladiisa ma wax kala qabayn tiisana laga yaabo inaysan ku anfacin haddaad qorta la gasho ragga dumar waxay tahayba hadhowta dhibaata ka imanaysa sababta ragga waxaa lagu yaqaanaa in ay talada iyo reerka iyagu leeyihiin iyagaa guriga mas-uulka ah الرجال قوامون على النساء marka waxaa la rabaa raggu inay talada guriga iyagoo leh haddana hooyada booskeeda aysan dhaafin oo hooyada booskeeda maxay tahay marka horena gurigan suu u noolaan lahaa talada inay la shargareeyaan guriga markay degaanna maamulka guriga hoose hooyada iskale gadaal baan insha Allah ka sharxi doonaa asagoo aabihii talada guud bixinaya way laakiin guriga hoos maamulkiisa waa inuu ku ixtiraamo hooyada waa inuu dhageystaa waa inuu fahmaa waa in guriga waxa ka dhacaya uu kala tashado hooyada marka waa inaad hubisaa dooqaaga inaad ku ilaaliso qof aan tala gelayn ama taladiisu aysan ka anfacayn gabdhahana raggana waxaan leeyahay waa inaad markaad qoyska dhisan aad iska ilaalisaan gabadhan waxba maqlayn oo wixii aad u sheegtay aan kaa dhageysanayn waa inaad iska ilaalisaa waa inaad ku maqlaysaa kuu dhaga nugushahay ku adeecaysa gabadhan marka maadaama aan maanta 4 qodob aan ka hadalnay
إن شاء الله تعالى waan soo gabagabaysanaynaa casharadannada maanta afartaas ayaan ku soo koobaynaa waxaan rajaynayaa intaynoo dhiman oo dhowrka qodoba oo haddii alla idmo maanta waxaan ka soo hadalnay fahamkii qoyska waa dhinaca dhaqanka ixtiraamka akhlaaqda iyo tala wadaagga horena waxaan uga soo hadalnay diinta iyo dabeecadda waxaanoo dhiman 3 oo ah kalsoonida sabirka iyo jacaylka oo iyadana casharkeena dambe insha allahu aan ku qaadan doono anigoo rajeynaya insha allahu tacaala waxaan halleeyay shaydaan bay ka ahaadeen wixii aan saxayna insha allah xag rabbi ka saxmeen ilaahay baan ajir uga raadsanaynaa waxaan rajeynayaa si aan u dhisno qoys barakaysan oo baraara oo qoys bila aan wada noqono inaan isticmaalno qorshaha fahamka qoyska insha allahu tacaala aad iyo aad u mahadsantihiin annagoo mar dambe kulmi doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh